ku dilay caruurtiisii ay meeshan ku wada ooynayaan ilaahay u naxariisto sabr iyo iimaan Allah naga siiyo walaashay waaye ilaahay u naxariisto qamar cabdiraxmaan cumar la yiraahdaa ninkeeda dilay wuxuu السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسر دوادا ولا ليال عش حرابة channel وحن ولا ليال كهذا ليال إن شاء الله بإذن الله نن كدلي حاس كيسي مقالة مقدشة كدلي هي العاو كهذا ليال نكاس وقبردا كدلي لعشرة $10 آدي آد بحنتي ومرجودي ونحي وأرن لقى مرجودة والله مرجولة عيال فربضان بيك تكتي وحي كرصة أنا وقرن معايا إن شاء الله $10 وتقرن إنسان لعقت أنت اللي لعقت هاي نف بلا آدم اللي جويه إلهي سبحانه وتعالى وحي النف للجويه الدون كانوا قبل يسوي الرجوي بيجوا نكسر ولا يا رو مركا حين قصة بطهي دلينك دمر كسيجود دليا ما أنا قصة بطهي حدين نصام علينا هاي حال إن لا رأينا عاد بوانا كسنان له بل وحن كيا بعروتي يرى قبل رأس أي كتكت هو يلاني يا بلعان حوفة إيدي المحوفة إيدي وحا أنت أي قصي درن والآد ولا سيابي وحا سبقعان ويبدأ عليه بالوران كرا إن كستو قدرت ربي يجهده هذانا أفكاس دوي كد عليه بالوران كرا لكن كانوا نن عاديستي ونمر إنه يهدي تلك عاديستي صابتها هاي ilmihii yaraa caruurtiisa ugu weynaa ayuu waxa la yiri wariba hanjabaya oo leeyahay adnood ka xigtaa hooyada baa la aasayay adiguna qof ka xigtaa tahay marka waxaan u maleynayaa horta qofkaas qof caafimaad qaba ma aha haddaynu Soomaalinahay waxaan ugu batay uqwada aynu ugu badan dambiyaal badan baynu galay inta kii dambiilaha hoosta lagu haystana hagaagi mayso Soomaali hagaagi mayso uqwooyin fara badan oo la arkina way soo baxayaan أنا وتلو حكوسو جديد لها إن لا يسقط قبته قف كي خات له قف نفتك جوي ناس نلقى جوي سكوا دمبل لو قص جوي لكن نوال خات الكيسو خاص قفصنا يا الله يرحمه بل لا يقف كيس كدنت هو دنت الله يرحمه إلهي بقرأ ورنو عليه بقرأ لكن هذا إلهي بكوني تدل قف خات له ولي بس يدارنا يا تولد دوحة الصومالية وحن كعصنا إنه إنك سوق بطل مرسو حقي صح أي مرسو أو نينكاس برايو سو ذا وما تلقى قفته نينكا علمي سي دارنايا أنا وحنا الله نينكا سي خطر وان خطر ويا فير دانجر ناوي إن وما تلقى قفته إن أنا أورن هو يده هتاي تكتي أبيه هل إسكت دايما هدي هو يده ماشي كبحده عرورته هو يده أبيه لو ده كان أبا معها حنا وس سعيدين مي وحكتر مويان ninkan waa nin khatara la ninka la qabto ninka laga qabto umada oo wax kale uu galaafanaha laga qabto bal ila daawada murugadan iyo wada fakda dhakafaar weeye mucjiso ilaahu subhanahu wa ta'ala iyagana ma artay qalbiga uu qaboojiyo isagana ki xumaanta u sameeyay laga jaasaysiyo ilaaha ka dhigay walaayaal ila daawada bal insha Allah biidmillah dilay oo ku handaday lacag ayada ay leedahay $25 wuxuu ku dilay midida geelka lagu qalo si macnaha qof xitaa iska daa qof wax ku dhalay qof kale xitaa islaamid aan loo dilin oo dilay marka ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu naxariis janna ilaahay siiyo asigana xaqeedu macnaha inuu ilaahay u soo birbiriyo oo cadaaladda wax loogu qabto oo macnaha cadaaladda ay xaqeedu ay u soo dhiciso بل كورن غورميلا سو شيء ديلكان 5 ساعة حلي ودحay dilkan تو كدحay wuxuu ka dhacay xamar jajab abaara 5 saac aheed oo 30 daqiiqo waliba ay la socoto 5 saac ay baray aheed guriga markaas waxa kula sugnaa wiilkiisa oo 15 jir ah iyo caruurtii kale oo guriga la joogtay gabadhii ilmaha dhashay markuu handaday oo lacagta uu ku handaday wiilkiisa ka qabtay oo soo kala waday wiilka markuu soo wado banaanka ugu soo bixiyay waa ka daba imaaday adoogii habartii oo banaanka wiilka uu soo bixiyo banaanka ku dilay
midida gacmaha ka jijibiyay gacmaha doo ka jijibiyay mididiyo wadnaha ka geliyay 9 midiyo ku dhuftay maya bal ka waran imisa caruur ay u dhaxeeyay 12 da'aday u dhashay saddexa dhimatay 9 hadda u joogtaa 4 gabdhood iyo waxaa joogta 5 wiil maya intuu dagaalkan dhicin wax khilaaf oo la ogaay oo reerku dhaxeeyay ma jiro wax khilaaf oo wax hore u dhacay oo la xaliyay maahane hadda wax khilaaf oo jira ma lahayn hadda midaana cusub wixii hore u dhacay macnaa nin inaagtiisa mar walba waa is dagaalaan laakiin taas waa bil xaliyo hadda cusub tahay lacag isii hadaad isiinayna waa ku dilaa nafta u dhaafi ninka falka geystay bal ka waran ninka falkaas geystay 5 saac oo amarkaas oo dhacay oo ka baxsaday xaafadda soo u baxsaday hadda ayadoo qabuurii la taagan yahay oo telefoon soo diray haddana oo wiilkii si asaga oo dhalo 15 jirka ah oo telefoon uu rabayna wuxuu leeyahay hooyada meedkeeda la duuga adaa ku xigtida ogow taas marka waxa waaye cadaaladda in wax ay ka qabato sharciga islaamka oo wax ka qabto aan ilaahay ka rajaynayna kulli xaqeeda ilaahay u soo badbariyo xaaladda caruurta ay dhashay iyo xaaladda hooyada xaaladda ay ku sugan tahay hadda mid laga sheekay kara ma ah waa taas ku muuqato xaalad macnaha hadda ma la control kar xaaladeeda caadi ma ahan caruurteedii mid dawaqsan oo isbitaal la geeyo iyo mid istaaga ka dhaco iyo mid aan hadli karin isugu jiraan waa macnaha arrin la yaab loo arrinta meeshan ka dhacday الله نحرست ويا ما محاول كذا البليسان dawladda waxaan ka dalbanaynaa in cadaaladda la soo hordhigo walaashay xaqeeda in loo dhiciyo in cadaaladda ay u heliso si macnaha in bilaadanimada ay ku jirto gacanka xaq darana dishay waa si waliba argagax leh waa la yaabanahay nabciyiin in dhaham waa u dhamay waayay marka wax uu ka leeyahay hebel ku xigo uu ka leeyahay teleefanadiisa waa dansaday teleefan kale walaalayaal waad arkaysaan halka xaaladu marayso u soo duceeyo horta reerkan insha Allah bidmilah ducayna uga baahan inaga xitaa wax taakalo hadii la taakuleynayo diyaar baan u ahay walaalaha khayrka jecel insha Allah kulli maalin walba marka si noolaato wuxuu baad arki ka yaabiya waxay naga yaabinayeen ku jirtaa arrinkano insha Allah bidmilah sida ay daawasho wanaagsan insha Allah walaalayaal subscribe-ka dee nagala bakhaylina noo saara insha Allah na dhiirigeliya waad mahadsantihiin walaalayaal assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh oo ka soo waca oo telefoonka soo dira dawladda waxaan ku codsanaynaa iyo intii macnaha muslimnimada taqaano ama bilaadanimada xaq dhowraysa in dawladda xaqeeda iyo cadaaladda ay meel u soo saarto gabadhaas macnaha ay hesho cadaalad inay hesho ilaahay ka rajaynayna